الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا ليال إن شاء الله تعالى مجالس كيني خير كبنيد إنوس سعوتي أي ندونا ما تنا إن نقول قلنا qofka waxaa laga doonayaa in waxyaalaha wanaagsan uu aruursado sida uu u aruursado midhaha kuugu wanaagsan. qofku hadduu beer yimaado wuxuu sameynayaa beertaas midhaha macmacaan buu guranayaa, kuwa bislaaday buu guranayaa, midhaha wuxuu guranayaa macnaha waaweyn ee aad iyo aadka u bislaaday ee macmacaan ee wanaagsan ee kuwa waaweyn ah ayuu guranayaa ee ishu soo jiidato, kuwaas ayuu guranayaa. saas oo kale marka majlis timaadid khayriya oo wanaagsan waxaa la doonayaa majliska inaad ka guratid midhaha ka wanaagsan, inaad ka faa'iidaystid majliska, inaad maalintii inaad 10 daqiiqo ama 15 daqiiqo ama 20 daqiiqo oo kaliya aad dhageysatid cajal ka sheekeynaya ama maxaadiro ama hadal wanaagsan oo ka sheekeynaya Ilaahay subxaanahu wa ta'ala weynaantiisa iyo jannada waxa yaala iyo aakhiro waxa yaala iyo shay diinta kamid ah oo xikmadu qofka way dhistaa oo waxay ka dhigtaa qof macnaha qalbigiisu uu korayo. qof markuu weynaado qof kusoo koray xikmad inuu qaato, oo markuu weynaado waxaa laga yaabaa hadallada uu ku hadlayo inuu macnaha ay ka buuxaan ama ay noqdaan kuwa xikmad leh, sababtoo ah qofkan waa qof qalbigiisii xikmadda soo siiyey. almuhim maanta waxaynu u fadhinaa inaynu wax ka taataabano min aqwaal alculamaa wa durarihim. in badan bayn kusoo jirnay casharo iyo inagoo baabab iyo mawduucaad ka sheekeynana, laakiinse maanta insha allahu tacaala waxaynu ku raaxaysanaynaa aqwaashii culimmadu aqwaal bay leeyihiin. culimmada cilmiga ku dadaalay ee cilmiga aad iyo aad u bartay waxay ka buuxiyeen kitaabada lagana soo wariyay aqwaal aad iyo aad u muhiimsan oo qofku markuu arko aqwaashaas uu ku raaxaysanayo oo uu garanayo aqwaashan cilmiga iyo xikmadda iyo waxyaalaha waaweyn ee ka buuxa. waxaa laga yaabaa in wax ay isaga ka dhex yacsanaayeen, waxaa laga yaabaa in waxyaalo fara badan su'aalo fara badan ay isweydiin jirtay, in waxyaalo fara badan oo afkaar kamid ah oo fikir kamid ah inay isweydiin jirtay. waxaa laga yaabaa markaad isweydiin jirtay afkaarta ama aqwaasha in markaad dhageystid sheekh caalima oo macnaha aqwaashiisii markaad akhrisid aqwaal kamid ah inaad ka heshid xal waxyaalihi aad ku fakari jirtay, in cilmi iyo xikmad ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku faa'iideeyo, in halkaa wax weyn ka faa'iidid ayaa la doonayaa. almuhim inuu arki doonaa insha allahu tacaala faa'iidooyinka ay leeyihiin. maanta aqwaal ayaynu iska akhrinanaa, aqwaashaasu marba baab bay taabanayaan, marba albaab bay gelayaan, marba mawduuc bay ku dhufanayaan oo marba mawduuc ayay ka sheekeynayaan. wax meel kaliya ku kooban maaha. markaana insha allahu tacaala qowlkeena koowaad مالك بن دينار أياس كله. مالك بن دينار وحوليه إن شيطان الإنس أشد على من شيطان الجن. حوليه شيطان كا إنسيا وحكدرين هاي شيطان كجنكا أيو كدرين هاي محايا لي إذا تعودت بالله هدي أن إلهي سبحانه وتعالى كما نقوله شيطان كجنكا أن إلهي سبحانه وتعالى ما قال يوديستو عنده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطان كجنكا وعرريا ويأمان قلنيا وحان كهليا أمني أيان كهليا ومعناها وانفرحيا يو دي كلغي أيا اسكو إيمانيا كلغي با نولوشيدي iyo waxaygi intaas uu iga maqan yahay awooda in waswaaskii uu igu hayay uu iga baxo. laakiin buu ku leeyahay shaydaanka insiga ah wuu ii iimanaya hadhowtana wuxuu ii gelinayaa macaasidi. shaydaanka insiga wuxuu ii iimanaya wuxuu ii gelinayaa macaasidi. shaydaanka insiga waxa weeye macnaha dadka xunxun ee macaasida iyo dunuubta badan ee qofka uu iimanaya ee shaki iyo waswaas ku abuuraya, khalkhal gelinaya, kicinaya dareemadiisa iyo ka caraysiinaya, ku furfuraya abwaab waxyaalo murugo leh uu soo maray ku furfuraya sidoo qofkaas macnaha isku bedelo oo xanaaqo oo macnaha qof naftiisa deganaan uu nahayn ama macaasibay tusayaan ama shay baadil ah ayay ugu yeerayaan. almuhim waxa weeye dadka u xeeladeesanaya siday qofka dunuubta iyo dambiga u gelinayaan. almuhim culimadu way ka hadlaan shaydaanul jin iyo shaydaanul insi.
xitaa waxay dhahaan qofku markuu dembiga sameeyo marka hore shaydaan baa u yeedhaya, shaydaan ayuu ka mid yahay ciidamadiisii. qofku markuu dembiga sameeyo oo macnaha shaydaan baa iska haysta, shaydaan baa adeegsanaya, ciidan iyo addoon ayuu u yahay shaydaan. shaydaan ayaa kursiga ugu fadhiya oo halkaa ka maamulaya, isna dunuubtii buu sameynayaa, waxaa weeye macaasidii ilaahay subxaanahu watacaala ayuu caasidaya. waa qofka marka hore dembiga isaga keliya ku go-an. laakiin qofkii markuu dembigiis aada u sameynayay uu ku takhasuso oo uu noqdo qof balaaya, wuxuu sameynayaa shaydaankii kursiga ku fadhiyey ayuu ka kicinayaa, isagii ayaa kursiga ku fadhiisanaya. kursiga markuu isagu ku fadhiisto ayaa shaydaankii ayaa wuxuu ka mid noqonayaa ciidamadiisii. meeshii awal hore isagu uu ciidamada shaydaanka ka mid ahaa, isaga laftirkiisa shaydaankii ayaa wuxuu u noqonayaa ciidan, oo isagii baa boqor noqonaya. macnaha shaydaankii ayuu ka weynaanayaa, ama shaydaankii ayuu meeshii kala wareegaya, isagaa meesha maamulaya. maxaa laga wadaa? waxay ka wadaan culimmadu ama waxay leeyihiin macnaha qofkan marka hore dembiga isagaa doonayay, isagaa dhudhuumanayay, isagaa dembi baxsad laahaa, isagaa macaasida meelaha ku qarsanayay. laakiin qofkii macaasidii markuu la qabsaday oo u bartay oo khabiir ku noqday, wuxuu sameynayaa dadkiibuu macaasida ku faafinayaa, dadka dhexdoodu ku faafinayaa, dadkiibuu u dirayaa. waad aragtay maanta dad ugu yeedhaya, dadka sinada ugu yeedhaya, ama kufsiga ugu yeedhaya, ama waxyaalo kale dunuuba ugu yeedhaya. adugu waxyaalaha la isugu yeedhayo oo dhan waxa weeye waa dad booskii shaydaanka ku fadhiya. shaydaanka booskiisii ayay ka kiciyeen, iyagii baa ku takhasusay, iyagii baa ka shaqeynaya. markii hore qofkan isagaa sameynayay, laakiin markii dambe wuxuu bilaabay inuu dadka ugu yeedho. maadaama shaydaanku dadka uu ugu yeedho, booskiisii ayuu la wareegayo, isagii baa wuxuu sameeyey shaydaankii ayuu macaasida iyo dunuubta iyo wixii ugu yeedhaya. markana almuhim darajo weyn weeye. macaasidu darajooyin ayay kala leedahay. qofku markuu macaasida in badan sameynayo, marka dambe shaydaan ayuu isku bedelayo, de isagii baa khatar noqda, oo isagii baa wuxuu sameeya dadkii ayuu khalkhal geliyaa. wuxuu doonaya dadka magaalada jooga ama dadkaas ku nool inuu macnaha sheeko shaydaan la soo aado oo macaasida iyo dunuubta iyo wax bilaa sharciga uu ku faafiyo. taasuna waa camalkii shaydaanka uu u noolaa, isna wuxuu kasoo qaatay dersiga ama wax soo baray shaydaanka wax soo baray. marka qofkan sidaa ah waxaa la doonayaa almuhim qofku inuu ilaahay ka boqo subxaanahu watacaala, oo ilaahay u xasuusto, oo diinta ilaahay subxaanahu watacaala in la faafiyo iyadaa ugu wacan, oo qofku ajar adduunyo iyo mid wanaag ka helaya. iyada in lagu takhasusana ugu fadli badan. qofku macnaha waa inuu kala doortaa, ma wadada shaydaanka ku takhasusaa oo aad hogaaminaysaa marka dambe, mise waa wadada ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku takhasusa iyo diinta. hadhowtana wadadii ilaahay subxaanahu watacaala iyo diinta ilaahay ayaa hogaaminaysaa iyo xilkii ambiyada qaaday doontaa. markaana adigu ka fikir insha allahu tacaala. taas waa faa'iido, waa faa'iidadii koowaad ee min durar aqwaal alculamaa. faa'iidada koowaad, cumar ibn khadaab ayaa waxaa la yidhi lamaa xumilat ilayhi kunuusu kisra. marka cumar ibn khadaab waa amiiru lmu'miniinkii labaad, kii koowaad wuxuu ahaa khaliifatu rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam. abubakr sidiiq buu ahaa. abubakr sidiiq wuxuu markuu dhimanayay u dardaarmay ama uu waraaq u qoray ama uu meesha uuga baneeyeyba cumar ibn khadaab, markuu arkay cid ka fadli badan isaga kadib inaynay jirin. markuu isagu dhintana, abubakr sidiiq markuu dhintana, cid islaamka ka fadli badan cumar ibn khadaab inuuna jirin, ayuu wuxuu go-aansaday in uu magaranaysaa meesha uu dhiibo. markaana almuhim meeshii uu ku wareejiyey, meeshii uu ku wareejiyey cumar ibn khadaab markuu ku wareejiyey, waatuu cumar ibn khadaab furtay wadamo fara badan. waatuu furtay, markuu furtay meeluhu ku furtay kisra ayaa ka mid ahaa. kisra malaku rum malik faris, rum faris, aduu labadii boqor faris rum ayuu furtay. kisra markaana kunuus buu lahaa, kunuus kisra, dahab, fidoy, diamond, lacagtii ugu qaalisanayd, lacagtay wadankaasu lahaayeen kuwii ugu qaalisanaa. markii lacagtii iyo dahabkii iyo kunuustii iyo wixii ku jiray dhan cumar loo soo qaaday, ayuu cumar wuxuu yidhi allaahuma innii acuudu bika an akuuna mustadrijan fa innii samictuka taquulu. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan kaa magangalayaa inaan ahaado mid loo seetay inaan ahaado ayaan kaa magangalayaa. maxaa yeelay waxaan maqlay adigoo leh sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuun,
waxaan ugu seeta dheereenaynaa meel ayna ogeyn ayaan uga seeta dheereenaynaa. markaana mustajrij istidraaj waxa weeye waa qofka si yar mustajrij waa qofka in si yar loo soo galo oo loo geliyo wax halaagaya oo diintiisa ka fidneynaya, hadhowtana lagu ciqaabo, hadhowtana ciqaabkiisa walaab uu noqonayo. adigu almuhim istidraaj waxa weeye nicma lagu siinayaa, nicmadii ma ogid, waxa weeye waa iska raaxaysanaysaa, macaasibaad sameynaysaa, dunuub baa sameynaysaa, ama awood baa lagu siinayaa, awoodii waxaad u isticmaalaysaa dhinaca xun. ilaahayna subxaanahu watacaala halkan ayuu wuxuu kugu jiraa dhufays oo uu ku daawanayaa, adigina isma ogid. sidaa u tahayna siniin kadib ayaa lagu qabanayaa adoo aan waxba iska ogeyn. markaana istidraaj waa ka macnaha wuxuu leeyahay waxaan ka magangelayaa in macnaha ay waxaan aan helay, futuuxaadka aan helay iyo barakada iyo khayrka aan helay iyo macnaha ummadda aan furtay iyo guusha weyn aan islaamku u soo jiiday inay igu beerto kibir iyo inaan iscajabiyo iyo inaan isla weynaado. maxaa yeelay qofka hadduu isla weynaado dee waxa weeye dunuub waaweyn buu kusii dhacayaayo dee ibliisba diinta ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu uga baxay, ama ilaahay subxaanahu watacaala go-aankiisii wuxuu u diiday ama amarkiisii wuxuu u diiday soomaaha wax uu iscajabiyey weeye. markaana wuxuu leeyahay inay iscajabin ugu dhacdo waxaas oo dhan oo min xayث istidraag aan iska farxo aan macnaha ku xamdi niqi waayo nicmada ilaahay subxaanahu watacaala, taas ilaahay subxaanahu watacaala ayaa kaa magangalaya. markaana dad fara badan baa arkaysayo hal mar nicmo ilaahay marka la siiyo way is ilaawayaanba, iyagoo ku faanaya arkasa, iyagoo siday doonaan u labisanaya arkasa, iyagoo siday doonaan u soconaya arkasa, iyagoo macnaha naftooda aan amrayn wax waajib ah ama amr ah aan ka reebayn xumaan ayaa arkasa, is ilaawayaan gebigoodaba kaannahum yani laa yamuutuun walaa yuxsharuuna cinda allah subxaanahu watacaala, sidii dad aanan dhimanayn oo ilaahay subxaanahu watacaala soo ag istaagayn ay isku ilaawayaan. markaana waxa weeye qofku nicmada ilaahay subxaanahu watacaala hadduu siiyo waa inuu ku shukrinaq waa inuu la yimaadaa, xamdinaq waa inuu la yimaadaa. haddaan ku xojiyo shay aad iyo aad u muhiima, taas waxa weeye waa istidraaj ayaa ka sheekeynaysaa. oo waxa weeye qofkan waxaa la doonayaa nicmada ilaahay subxaanahu watacaala marka la siiyo in uunan ku xadgudbin, ama inuu magaranaysaa nicmada ilaahay subxaanahu watacaala uu garto oo ilaahay subxaanahu watacaala iska ilaaliyo ciqaabtiisa oo markastaba ilaahay uu ku shuru noqo. taas waa mid, waa faa'iida ama qowlka saddexaad weeye. fudayl ibnu ciyaad haddaan ka sheekeyno ereygiisa macaan wuxuu leeyahay idaa ra'ayta daaliman yantaqimu min daalim faqif wandur mutacajiban. waxaad eegtaa uu ku leeyahay daalim ka aargoosanaya qof daalim ah, ka aargoosanaya istaag oo yaab u istaag buu ku leeyahay. macnaha wuxuu ku tusayaa shiikhaasu dadka daalimiinta in iyaga la isku dhufto, dadka daalimiinta in iyaga la isku dhufto, dadka daalimiinta ee dadka islaamka ama dadka masaakiinta nafta u keena ee lacagtooda cuna ee guumaysta ee fitanta iyo balaayada ku faafiya ee waxyaalo fara badan dunuub fara badan dakada ka saara siday iyagu u sareeyaan oo macnaha intay waxyaalo fara badan oo intay qaataan hanti intay qaataan ay iyagu intay sheegtaan oo ay dhahaan macnaha kuwaasa hantida haday ama kuwaasa qaatay, iyagoo doonaya inaan la ogaan dunuub fara badan oo ay galaan inay dadka masaakiinta saaraan iyo kuwa bari ka ah. kuwaas marka daalim kale ilaahay ku ciqaabo istaag oo yaab. macnaha waxaad ogaataa daalimkan maanta waxa sameynaya hamoodin in macnaha cid ka awood badan inay jirin. ilaahay subxaanahu watacaala daalim kale wax soo dulmiyey ayaa u imanaya waa tii lahaa hala yaabin qof ma garanaysaa qof ku amaanay hala yaabin. maxaa yeelay qof been kugu amaanay haddaa la yaabtid
qof been kugu amaanay haddaa la yaabtid oo aad ku fafarxdid waxaa ogaataa beri inuu kugu caayo waxaanan adigu ahayn. qofka markaa ammaanaysid run waa in lagu ammaanaa soo maha. ammaanta caadigaa baa la sheegaya laakiinse ammaanta iska caadigaayay ma garanaysaa aanan wax ku jirin ee qofka badanaaba wanaagsan tahay ama waa fiican tahay ama ama waxaa tahay nin qiimo leh amaane taas waa iska caadi. laakiin ammaanta kale ee ah macnaha ammaanta waaweyne qofku isagoonan mudnayn la siiyo waxaa ogaataa waxaa lagu yidhi qof ammaan aadan mudnayn aadan arag oo been ah haddii uu kugu ammaano ha ku farxin baa la yidhi. maxaa yeelay beri ka maalin waxaanad ahayn ayuu kugu caayaya been buu kaa samaysanaya beri ka maalin. marka almuhim waxa weeye maanta ma garanaysaa qofka daalimka hadduu waxaa sameeyo ama uu ma garanaysaa qofka daalimka hadduu dadka dulmiyo ogow mid kaloo isna daalim ah ayuu ilaahay subxaana watacaala dhinaca kaga keenaya. adigu hayse dhihin macnaha qofkan cid ka dambaysa ma jiro waa laga dambeeyaa ilaahay subxaanahu watacaala ka sokow kadib ilaahay wuxuu ku dirayaa qof kaloo daalim ah oo awood leh. almuhim halkaas ayaan kaga soo baxnaa. waad ogtihiin macnaha ama waa aragteen dadka culimmada aqwaashooda iyo khibradda ku jirta iyo waxyaalaha wanaagsan ee ku jira iyo macnaha xikmadda ku jirta intay tiro leeg tahay. waxan waa noloshii bini-aadanka laga sheekeynayaa. mar waxaa laga sheekeynayaa dulmiga, mar waxaa laga sheekeynayaa macnaha akhlaaqii wanaagsaneyd, mar waxaa laga sheekeynayaa waatuu xitaa sheekh culimmada ka mid ah oo ayaa wuxuu lahaa wuxuu dhihi jiray anigu way badan tahay buu ku leeyahay way badan tahay inta qof ee ii yimi waxaan aan garanayn xadiis aan garanayo igu dul akhriyay iyo qiso aan garanayo iyo macnaha aayad tafsiirkeed aan garanayo igu dul akhriyay hadhowtana aan iska aamusay oo aan iska dhageystay sidii qof aan garanayn iska dhageystay. taasuna waa akhlaaq wanaagsan. akhlaaqda ayay soo gelaysaa. maxaa yeelay qof maanta hadduu kula yimaado sheeko oo sheekadii aad garanaysid aad kusoo boodid aad tiraadid war sheekadan waan naqaanaa waa maqalnay waxaas waan maqalnay macnaha qofkii waxaa laga yaabaa inay ka khalqalgeliso sheekadii iyo wixii wanaagsanaa uu ku waday. laakiin maxaa samaynaysaa haddii aad saaxibul akhlaaq iyo saaxibul karam qof akhlaaq wanaagsan haddaad tahay waxaa samaynaysaa qofka inaad dhegaysatid sheekadiisa. haddaad doontid ilaahay ma malaayiin jeer garanaysid alxamduyo aad dhakada ka hayso ilaahay may ahaato hadday doonto. almuhim sidii sheekadiinu u wanaagsanaato si wanaagsanna aad iskula fadhidaan qofkaas waxa aad garanaysid oo uu ka sheekeynayo iska dhegayso. hadhow markuu dhameeyana sidii qof aan garanayn oo ogaaday madaxaas ka ruux. taasoo akhlaaqda wanaagsan ayaa ka mid tahay. markaana halkan waxaan gelaynaa sheekh caalima oo sujaaj la dhaho ayaa wuxuu leeyahay alkaafiru kulamaa ra'aa xaalan min axwaali alcadaabi wara'aa xaalan min axwaali almuslim wadda low kaana musliman. qofka kaafirka ee maalinta yowm alqiyaame mar kastaba uu arko axwaasha ka mid ah axwaasha dadka la cadaabayo sida loo cadaabayo iyo mar kasta uu arko dadka la janeynayo ee islaamka sida loo janeynayo ayaa wuxuu jecleysanayaa inuu adduunkii ku ahaan lahaa qof muslima. maanta waxaa laga yaabaa dad fara badan oo gaala in adduunyo yaro ay haystaan iyo labis yaro ay xidhaan iyo macnaha guryo qurux badan ay degan yihiin in ay diintii ka mashquulisay oo isdhahayo qof macnaha qani ah oo iska dhigayo oo dhahayo anigu wax kale oo baahni haddaan intaa haysto cabdu dirham wa diinaar waxaan ahay afti qofka saasaan ahay markaana anigu waxba igama gelin waxaan caabudayaa lacagteedaas. markaana qofka sidaas ah aakhiro marka uu arko axwaasha ahlnaarka isagoo weliba naarti ku jira naarti isagoo ku jira weliba oo arko dadkii ahlnaarkaas sida loo cadaabayo iyo cadaabka ilaahay cadaabka dhakada ka saaran iyo in jidhkoodii la bedelayo oo mar kastaba mid cusub markuu jidhkoodii hore uu gubto mid cusub la siinayo oo cuntadii ahlnaarkaha ay cabayaan oo ay waxyaalihii laga miiray diinatil khabaal waxyaalihii laga miiray dadka ahlnaarka sharaab looga dhigayo iyagoo weliba kulul markuu axwaasha arko oo dadkii muslimiinta ahaa oo arko iyagoo jannadii ku raaxaysanaya oo iyagoo wax cabaya oo wax qabow cabaya iyagoo iska raaxaysanaya markuu arko oo wuxuu jeclaanayaa low kaana musliman inuu ahaan lahaa adduunka markuu joogay qof islaam ah ayuu jeclaanayaa. walaalayaal alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay subxaanahu watacaala baa ku mahadinaa noo dhammaystiray fadhigeena muhiimka wanaagsan
intaas ayaynu maanta kusoo koobanaa maanta waxaynu ku mashquulnay ama aynu xoogaa yaro dulmarnay aqwaal min aqwaal alculamaa aqwaal ka mid ah aqwaashii culimmada oo weliba iyagu faa'iido fara badan ku fadhiya oo marka kitaabada la akhrinayo la qorto meel gaara lagu qorto meel gaara ayaa lagu qoraayo maxaa yeelay dee aqwaashaas waa aqwaal cilmi iyo xikmad iyo wanaag ba ay ku dheehan yihiin insha allahu tacaala intaas ayaynu kusoo koobanaa inahaas ayaynu ku joojiyeynaa maanta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu